ما أنا أرجع faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal geystay khasaare kala duwan oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo. Dagaalkan oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dambeeyay kadib markii ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay kaabayaan kuwa daraawiisha maamulka koonfur galbeed ay weerareen fariisin ciidamada cad oo Cabdicaziz Laftagar ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baydhabo. ciidamada ayaa si gaar ah u weeraray xilal lagu magacaabo barwaaqo ku taala duleedka magaalada Baydhabo, halkaas oo dhawaan muuqaalo isaga soo duubeen saraakiil xubno la sheegay inay horkacayeen ciidamadan daacad u Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagar. waxaana intaasi kadib xigay dagaal fulka fool oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhinacyada ku dhex maray duleedka magaalada Baydhabo. saraakiisha horkacaysa howlgalkan ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo laguna beegsaday fariisimaha goobaha ay ku sugnaayeen ciidamadii daacad u Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagar oo warbaahinta ka soo muuqday waxay sheegeen in dagaalkan uu ahaa mid la qorsheeyay ayna ka gaareen guul la taaban karo maadaama ay la wareegeen dhammaan goobihii fariisimaha uu ahaa ciidamadii Laftagar daacad u ahaa ee fadhiisinka ku lahaa duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale saraakiisha howlgalka horkacaysa ciidamada wanta waxay soo bandhigeen tiro maxaabiis oo la sheegay in lagu qabtay dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo, waxaana xubnaha la qabtay u badan yihiin kuwa daacad u hogaamiye koonfur galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagar. waxaana xilligan degan dhammaan xaalada goobihii lagu dagaalamay ku yaala magaalada Baydhabo. guud ahaan magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si gaar ah barnaamijka magaalada Soomaaliya la soo dhaafay waxaa sidoo kale ugu soo laabanayay weerarada ay soo qaadayaan ciidamada daacad u hogaamiye koonfur galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagar, balse taasi maanta mid ka duwan ayay wajaheen ciidamadii Laftagar daacad u ah oo waxaa lagu weeraray fariisimo iyo goobihi ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada Baydhabo ayna ka soo aawalayeen weerarada qorsheysan in lagu fuliyo gudaha magaalada Baydhabo iyo barnaamijka magaaladaas. xaalka guud ahaan goobihii lagu dagaalamay ayaa iminka u muuqda mid degan, waxaana fariisimalkaasi ka sameystay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiisha koonfur galbeed Soomaaliya. waxaa ilaa iminka aan jirin wax waro ka soo baxay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya hay'adihiisa amniga iyo sidoo kale militariga Soomaaliya ay kaga hadlayaan dagaalkan ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed. xog walba ka soo qorata dagaalka Baydhabo oo gal ciidamada xilligan ay sameeyaanba wixii ku soo kordhay wararkan iyo barnaamijyada dambe ee kula wadaagi doona saaxiibayaal.